waafajiyo. Horta dhowr wax waa laga hadlay, laakiin aniga waxaan ku soo darayaa laba shay ama laba dhacdo oo aan u joogay oon ku soo arkay magaalada Muqdisho. Mid waxay tahay mar aan ka shaqeynayay saxaafadda aniga koox wariyaal aan tagnay dekedda Muqdisho. Markaan oo warkaan soo dhammaysanay oon soo bixi rabno ayaa waxaan ku aragnay meesha dhowr jawaano oo faaruq ah oo meesha dhan fashaq ah oo ur badan. Waxaan ogaanay in raashinkii dhacay laga bedelaayo oo la rabo in lagu shubo ama la gelinayo jawaano cusub si shacabka loogu gado. taasna waxay tahay mid oo sharci islaamka baalmarsan. midda labaad waxay tahay mar aan ka shaqeynayay airboortka ayaan waxaan arkay oon ku qabanay daawooyin dhacay. markaan baaritaan sameynay waxaan ku aragnay daawooyin aan tayadooda aad u liito. markaan baaritaan dhab aan ku sameynay ama ganacsatii aan weydiinay waxaan dhaynay maxaa idinku kalifay in halkii garaam ama 500 miligram ay tahay halka daawo aad dhowr garaamo badan aad ka samaysaan, maxaa idinku kalifay? jawaabna ma siine. sababtoo ta wiil waxaa ka daran midda xamar lagu sameynayo. waxaa jiro daawooyin xamar lagu sameynayo. marka qofku ganacsatada uu sameeyo waxaa la geynayaa farmashiyaadka. farmash qofku markuu qaato uu furay uu cabo, qofku wuxuu rabaa inuu ku caafimaado, kuma caafimaadayo. markuu kala jibiyo wuxuu arkaa meesha waxaa ku jiro budooyin bur ah. taas dhib weyn ayay u keentay shacabka maanta caafimaad darada haysato. wiil waxaa jiro waxaan ugu baaqayaa ama waxaan baaq u dirayaa wasaaradda ganacsiga, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda caafimaad, maamul gobolka banaadir in baaritaan dhab ay u sameeyaan waxyaalaha ka soo degaya dekedda iyo airboortka. taas waxaan u leeyahay si aysan u dhicin in mar dambe la soo geliyo waxyaalo aan tayo leh. midda kale waxaa kale mas-uuliyadda ka saaran meesha inay controlaan customer officer ama sarkaalka u qaabilsan baaritaanka. insha allah haddii annaga aan nahay axsaab siyaasadeed ama dad ku dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka waan ku garab istaageynaa, baaritaankana waan sameyneynaa insha allah biidni illahi kariim. wabilaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.